kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal. Horaantii bishii Juun waxaa digriyeetay madaxweyne lagu soo magacaabay duqa degmada Garowe Axmed Siciid Geelle. Waxa uu haystay muddo 45 cisho ah inuu ku dardargeliyo howlaha degmada oo uu gaarsiiyo marxalad lagu qaban karo doorasho. duqa degmada waxa uu ahaa xubin firfircoon oo kamid ah qurba joogta reer Puntland oo waxa uu door weyn ka qaatay sidii bulsho weynta qurbaha ku nooli isugu xirnaan lahaayeen isla markaana uga qayb qaadan lahaayeen horumarinta wadanka. Axmed waxa uu inta uu ku noolaa qurbaha ka qayb qaadan jiray sidii dalka Ingiriiska looga soo dhaweyn lahaa madaxda reer Puntland ha ahaadaan heer federaal ama heer Puntland. waxa uu abaabul xoogan ka geystay munaasabado lagu soo dhaweynayay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake iyo madaxweynaha Puntland qaar ka mid ah golaha wasiirada oo gaaray magaalada London ee dalka Ingiriiska. gudoomiyaha degmada Axmed Siciid Geelle waxa uu sidoo kale ka qayb qaadan jiray isla markaana uu bulshada ku dhiirigelin jiray inay dalka taakula soo gaarsiiyaan xilliyada abaaraha oo kale oo waxa ay ku soo hagaajin jireen culimada. arrimahaasi oo dhan waxay sabab u noqdeen in loo soo magacaabo xilka gudoomiyaha degmada Garowe si uu kor ugu qaado shaqada degmada iyo guud ahaanba maqaamka caasimadda Puntland ee Garowe. muddo yar kadib xilliga la magacaabay duqa degmada ayaa la wareegay xilkaasi. waxa uu muhiimadda siinayay laba arrimood oo degmada baahi gooni u qabtay. waa tan koowaad waxay ahayd sidii kor lagu qaadi lahaa bilicda isla markaana loo qaadi lahaa qashinka yaala caasimadda. tan soo raacda ayaa muhiimadda siinaysay ammaanka oo duqa degmadu waxa uu sameeyay hab ka duwan qaabkii loo sameyn jiray roondada ama xaqiijinta ammaanka ee caasimadda Garowe. duqa degmada muddadii uu xafiiskan joogay waxa uu ku tilaabsaday wax qabad la taaban karo isagoo uu horeyn dhiirigelin iyo kulamo joogto ah la sameeyay shaqaalaha dawladda hoose. waxa xafiiska degmadu uu noqday mid 24 saac shaqadu uga socoto sidii loogu talagalay. iyo security in laga shaqeeyo wala program baan keeni doonaa security nadaafadan program baan waxaan kala tashan doonaa marka ragga garbayga jooga asmayaasha ma in kaligiis amra dadku iska shaqeeyma. gudoomiyaha degmada waxa uu joogteeyay kulamada uu la yeelanayo hoggaanka xaafadaha caasimadda oo waxa uu la yeeshay shirar ku saabsan xaqiijinta amniga, horumarinta xaafadaha, isku xirka degmada iyo xaafadaha iyo dhiirigelinta shaqada bulshada. caasimadda Garowe waxa lagu qabtay intii uu joogay duqa cusub ee degmada Garowe Axmed Siciid Geelle shirweynihii ugu ballaarnaa oo ay goobjoog ka ahaayeen xildhibaano, isimo, nabadoono, waxgarad, aqoon-yahano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. waxaa shirkaasi ay ku saabsanaayeen isbarasho iyo soo bandhigista qorshayaasha cusub ee lagu maamulayo degmada. shirkaan ama xirfadan quruxda badan waxaan u qabanay inaan isku baranno maadaama aan ahay maayar cusub. arrimaha markaan xilka qabtay oo wiigaan ahay waxaan ku jiray subaxdiina waa shaqaynay galabtiina waa shaqaynay. muhiimadda aan saaray waxay inaan xog ururiyo wiiga ugu horeeyo barnaamijka wiiga ugu horeeyo xog inaan ururiyo. waxgaradka ka qaybgalay shirkaasi waxay tilmaameen inay taageersan yihiin isbeddelka lagu sameeyay degmada oo waxay sheegeen inay diyaar u yihiin doorashada duqa degmada Garowe Axmed Siciid Geelle. gudoomiyaha cusub baan ahayo caasimadda Garowe waxaan doonayaa in la soo dhaweeyo dadkuna haatan waa u sacabiyeeyo hadde meesha waxa ka muuqatay la soo dhaweeyay aniguna haatan hadde urji fawartis ku gowracan baa la yiri oo bulshadaydu waxa ay raacday maba diidi karo waa ku soo dhaweynay baan leh. hawlka madaalo wali waa hogadi duqa wuxuu yiri halayla shaqeeyo waxa la shaqeynaya oo la rabo inay la shaqeeyaan yaa weeyaan isweydiinay waa inteena iyo inteena ka maqan. duqa kaligiis waxa ma qaban karo hadayna la shaqeyn. Soomaalidu waxay ku maamulada kabaalada waxa la isku suraa iyaguna hay saxshadeen xoogooda hawada jiro. marka turta cusub iyo waxa uu soo jeediyay inaynu kula shaqeyno garab istaagno waa laga maarmaan. waxa laga rabaa inteena iyo inteena ka maqan oo mas'uuliyiinta. xafiiska isku xirka xaafadaha iyo degmada Garowe waxa booqday intuu xilkan hayay gudoomiyaha degmada
oo waxa uu u kuurgelayay sidii kor loogu qaadi lahaa shaqada xafiiska iyo baahiyaha ay tabanayaan. Gudoomiyuhu inta uu xilkan hayay waxa uu booqday suuqweynaha caasimadda. Waxa uu duqi eegayay sida nadaafadda suuqu yahay iyo baahiyaha ay qabaan. Dhanka nadaafadda haddaan eegno, gudoomiyaha degmada Garowe Axmed Siciid Geelle ayaa ku dhawaaqay 5 cisho oo ah olole nadaafadeed oo lagu banaynayo qashinka yaalla caasimadda. Ololuhu ma ahayn mid ay sameynayaan shacabka kaliya, balse waxa badeelka qaatay oo qashinka wax ka gurayay gudoomiyaha degmada. Waxay ahayd tilaabo ku dayasho mudan oo muujinaysa astaamaha hoggaanka wanaagsan. Ololuhu waxa uu noqday mid lagu guuleystay oo laga sameeyay dhammaan xaafadaha Garowe. waxaa runtii gashay shucuur aad iyo aad u qiimo badan, maxaa yeelay kelmaddii madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu doorashada ku soo galay waxay ahayd in la isku tashto. maanta waxaa muuqata mirahaas in la hayo oo aan isku tashannay oo kelmad baxday maanta oo ah iskaa wax u qabso, in xaafadihii iskaa wax u qabsan loo shaqaynayay. cadowgiisa allaha qabto, xabiibkiisa allaha kor yeelo. dowladda hoose waxaan leenahay ha noolaato. waxa ay ku dhimanayaan oo ay cusbaynayaan waa dalkeennii. dadka dhulka lehina waa innaga. iyaguna nadaafadda iyo quruxda iyo wanaagayna la rabaan, isku xirraantayna la rabaan. waa inaynu meel uga soo wada jeednaa, waa inaynu u diyaar garownaa, waa inaynu la shaqaynaa, waa inaynu garbahoodii ahaanaa, gacanta midigtaa waa inaynu kala shaqaynaa. ogolaha deegaanku yahay gaabiska lalahan, golaha deegaanku yahay gaabiska lalahan, oo guddiga xaafadaha yahan gashadeen dhaxayn, oo guddiga xaafadaha yahan gashadeen dhaxayn, oo guddiga xaafadaha yahan gashadeen dhaxayn. ogarsoorahaw sidee gol ogarsoorahaw weleega gadaal ha marin, oo qofba wuxuu goosto yahan dul kaleeto goga. dhanka isboortiga haddaan ka eegno, duqa degmada waxa uu ka qayb qaatay sidii dhallinyarada loogu dhiirigelin lahaa ciyaaraha. waxa uuna kala qayb galay munaasabada lagu furayay tartamo kala duwan, kuwaasi oo dhalinta ka mashquulinaya ku dhicidda falalka amni darro iyo sidoo kale khatartan haysata dhallinyarada reer Puntland ee tahriibka. dhanka nabadaynta haddaan ka eegno, duqa degmada Garowe intii uu xilkan hayay waxa uu door weyn ku lahaa ka qayb qaadashada nabadda, oo waxa uu abaabulay gacanba ka geystay shirar ku saabsan xalinta khilaafaadyo kala duwan oo lagu qabtay caasimadda Garowe. dhowaan waxaa markii ugu horeysay Soomaaliya gaar ahaan Puntland lagu caleema saaray suldaanka ugu da'da yar ismada Soomaaliyeed ama Puntland, Suldaan Maxamed Suldaan Axmed. caleema saarku waxa uu ka dhacay deegaanka Jalam ee gobolka Nugaal. duqa degmada Garowe waxa uu ka qayb galay caleema saarkaasi isagoo ay wehelinayaan ismada Puntland iyo bulshada ku dhaqan caasimadda Garowe. dhanka kale, duqa degmada Garowe ayaa caasimadda kulan casho ah u sameeyay boqorka beelaha Daarood, boqor Burhaan boqor Muuse, oo markaasi ka soo laabtay safar dheer oo ku mareeyay dalka iyo dibaddaba. waxa uu sidoo kale duqa degmada kaalin ku lahaa ka qayb qaadashada weynaynta kitaabka Alle, waxaana dhowaan masjidka Huda ee magaalada Garowe lagu soo gabagabeeyay tartan soconayay 10kii dambe ee bisha barakeysan ee Ramadaan oo lagu tartamayay quraanka kariimka ee qowlkeebe. waxaana maamulku sidoo kale gacan ka geysteen sugidda amniga caasimadda intii lagu guda jiray bisha Ramadaan, iyadoo ciidamo khaas loo sameeyay masaajida. intii guulaysatay iyo intaan guulaysanba, maxaa yeelay markaan leeyahay intii guulaysatay inaad wada guulaysateen baan aaminsanahay. waxaad akhrinayseen waxay ahayd kelmadda Ilaahay, martaa waxaa daliil u ah inaad wada guulaysateen. duqa degmada Garowe waxa uu kaalin muuqata ka qaatay intii lagu guda jiray bisha barakeysan ee Ramadaan barnaamijyo lagu caawinayo dadka danyarta ee ku nool caasimadda Garowe.
waxaa taa maanta aniga fursad ii tahay inaan ka soo qayb galo anoo maayar ah ku hadlaya codkii dowladda ku hadlaya codkii shacabka inaan maanta markhaati ka ahay wixii dibadda aan ku arki jiray inaan goobjoog maanta u ahay waxay gelinaysaa dhiirigelin waxaana rajaynayaa xafiiskaygu inuu dadka aabbaha iyo hooyada bulshada u ah inaan wixii annagu xaggeenna soo gaara inaan iyaga igu soo hagaajinno sidoo kale duqu waxa uu kaalin weyn ka qaatay sidii caasimadda looga soo dhoweyn lahaa mas-uuliin ka tirsan dowladda federaalka maamulka Jubbaland oo waxa uu caasimadda Garowe ka dhigay mid u diyaarsan inay imaan karaan cid kasta oo wada maslaxadda ummadda Soomaaliyeed markii ugu horeysay waxa caasimadda Garowe ku ciiday madax ka tirsan dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland oo waxa duqa degmada Garowe ka qayb qaatay sidii loo hagaajin lahaa halkii ay ku ciidi lahaayeen madaxda iyo sidii loo adkeyn lahaa ammaanka caasimadda Garowe. ciid mubaarak haddaad maqashaan dowlad waa shacabka weeye waxaan farayaa inay la shaqeeyaan laamaha amniga dowladda maxaa yeelay intuu rabadaanka hadda bishii rabadaan qayrka ay socotay waxaan bixinay haddaan gobol nahay haddaan degmo nahay masaajid walboo taraawiix ka socoto inaan ciidanka amniga ay ilaaliyaan maxaa yeelay meelaha keliya oo laisugu soo dhuunto waxaa weeye masaajidada weeye intaa ka bacdi dhammaadkii bishii Julaay waxaa degmada Garowe lagu soo dhoweeyay madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Faroole waxay ahayd soo dhoweyntii ugu ballaarnayd ee degmada ka dhacda maamulka degmada ayaa ka qayb qaatay sidii loo sugi lahaa ammaanka iyo qaabkii loo soo dhoweyn lahaa madaxweynihii hore ee Puntland caasimadda Puntland ee Garowe waxaa horaantii bishii Agoosto lagu maamuusay 17 sano guuridii ka soo wareegtay xilligii dhidabada loo taagay Puntland 1 Agoosto 1998 waxaa maamulka degmada ka qayb qaadanayeen sidii loo maamuusi lahaa maalintan iyagoo abaabulay bulshada qaybahooda kala duwan qurxinna ku lahaa goobta lagu qabanayay xafladan waxaa duqa degmada la arkay intii xafladaasi lagu jiray isagoo kala nidaaminaya madasha xafladu ka socotay waxaan soo dhaweynayaa shacabka tirada intaan leego aadka u tiro badan oo ka soo qayb galay xalfadan waxay tusaysaa inay dadku yihiin dad midnimadooda ka shaqaynaya qarankoodana u shaqaynaya waan iga mahad celinayaa kelmadaan leeyahay waxaa weeye waa soo dhawaasho waxaan idin farayaa inaad midnimadiinna ilaadsataan dowladdiidnana ilaadsataan maxaa yeelay noloshu waxay ku jirtaa midnimada iyo dowladday ku jirtaa dhanka arrimaha bini'aadanimada haddaan ka eegno duqa degmada Garowe waxa uu booqasho ku tagay isagoo qayb ka ah wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas cusbitaalka weyn ee magaalada Garowe waxayna u kurgalayeen isla markaana eegayaan xaaladda caafimaad ee ciidamo ka tirsan Puntland kuwaas oo gaari la gadoomay dhaawacoodana la gaarsiiyay cusbitaalka Garowe duqa iyo ku-xigeenka hergeyga gaarka ee qaramada midowga u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ayaa sidoo kale booqasho waxay ku tageen kaamamka barakacayaasha ee Garowe waxay eegayeen isla markaana indheynayeen nolosha barakacayaasha baahiyaha ay qabaan waxaana duqa degmada Garowe Axmed Siciid Geelle oo warbixin faahfaahsan ka siiyay madaxda qaramada midoobay nolosha dadka barakacayaasha waxaana ka codsaday inay si dhaqso ah wixii kaalmo ay u hayaan u soo gaarsiiyaan isagoona sheegay ka degmahan inay diyaar u yihiin siday kaalin weyn uga geysan lahaayeen wax ka qabashada iyo caawinta dadka barakacayaasha ee ku sugan magaalada Garowe caasimadda Puntland dhawaan waxaa soo gaaray Puntland safiirka hore ee dowladda federaalka Soomaaliya u fadhiyay dalka Kenya ambassador Maxamed Nuur Cali Americo soo dhaweyn ballaaran ayaa loogu sameeyay guud ahaan Puntland gaar ahaan intii safiirku tagay balse caasimadda Puntland ee Garowe waxaa soo dhaweyn ugu sameeyay duqa degmada Garowe Axmed Siciid Geelle waxa uu sidoo kale qayb ka ahaa duqu casho soo dhaweyn ah oo madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas madaxtooyada ugu sameeyay safiirka hore ambassador Maxamed Nuur Cali Americo waxaa soo codsateen laba shay wuxuu ahaa in idin duceeyo shayna wuxuu ahaa in la shaqeeyo
madaxweynihii baa jooga anigu degmo ahaan maalintaa xilka qabtay ayaa waxaan go'aan ku gaaray markaan arkay aaminaadda culimmada wixii xafiiskayga soo mara inaan iyaga ku wareejiyo anoo aan la xisaabin anigoo aan u tilmaamin inay og yihiin baahidaha meelaha ay ka jirto taas baanay u imaanaysaan ka shaqayn doonaa biidnillaahi kariim waxqabadkii ballaarnaa ee duqa degmada Garowe Axmed Siciid Geelle muddadii koobnayd ee uu xilkan hayay intaasi kuma koobna daawadayaal ee waxaan soo qaadanay kuwoodii ugu muhiimsanaa